السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحبي هل سود بعد الماتينا سو حرجنا أنا عارف ما تختان فيديو عاوي كسبسين يا فلان كانت تضمن لها يا سمين جرني سدع مباراتين مرة بوي كده معدو حزمين جرني فلان قيمة أكو فلان قيمة إنه لما العجاء فرصة ويكند يكجرتو meelaha intriga aad ka faa'iidaysantiin iyo fikradaha aniga ii gaarka ah ama lacagaha gaarka ah aan rajeynayo inaan weekend trade ka qaato. So usbuucyadii u dambeysay labadii week u dambeeyay intaan jeclahay wax muuqaal ah oo ku saabsan falanqeymaha suuqa maana soo dhigan sababo mashquul igu furan iyo arrimo aniga ii gaar ah awgiisa. So dib ayaan usoo laabanay oo weekend insha Allah waxaan sameyn doonaa falanqeymihii aan hore u sameyn jirnay. So weekend kale wuu ka duwan yahay labadii week iyo hadda aan soo dhaafnay haddii aan dib u laabano weeka marketka wax fursado soo badan muusan ka jirin oo marketka consideration adag ayuu ku jiray oo ama sideways ayuu ku jiray jaanisyo aad u fara badan oo aan trade ku qaadan karno leedahay maysan jirin. So aniga xataa aan trade badan labada week soo dhaafay maan qaatin gaar ahaan weekii hadda la soo dhaafay ma baan trade garinin wax trade maanan qaadanin. So haddii aan dib u soo laabano ama falanqeymaheeni weekani lacagaha aan rajeynayno dib ugu soo laabano weekani labadii week ee soo dhaafnay wuu ka fursad badan yahay xaqiiqdii marketka fursado aad u fiican ayaa ka jiri doonto hadduu ilaahay nafta nagu simo insha Allah. So already hadda waaba marketka wuu furmay hal saac ka hor uu furmay. So waxaan ka bilaabi doonaa falanqeymaheeni sida caadiga aan falanqeyd hore u sameyn jirnay lacagaha dollarka ugu horeeyo. So waxaan ka bilaabi doonaa falanqeynteeni koowaad oo ah DXY-da sidaan wada ognahay mar walba falanqeynta waxaan ku bilaabaa DXY-da muuqaalo badan hore oo ugu soo sheegay DXY-da mar walba aad fursad ka hesho waxaa sidoo kale fursad ka heshay lacagaha euro lacagaha USD-ga u horeeyaan iyo lacagaha USD-ga ay u dambeeyaan ama kuwa base currency-ga loo yaqaano iyo kuwa quotes-ka loo yaqaano. Tusaale waxaan ka wadaa haddii DXY-da aad fursad fiican ka soo hesho oo DXY-da fursadeeda aad soo ogaato waxaad ogaatay fursadaha lacagaha Euro USD, USD CAD, USD CHF, USD GBY, GBP USD, NSD USD iyo AUD USD. So lacagaha mar waliba uu dollarka ugu horeeyo kuwa dollarka ugu horeeyo tusaale aan dhahno Euro USD iyo waxaan ka soo qaadnaa USD CAD ayaan tusaale ahaan ka soo qaadinaa USD CAD. So haddii DXY-da aad analysis-keeda si fiican u soo ogaato lacagahani ay USD-ga u dambeeyaan kuwa USD-ga gadaal ay ka raacdo haddii DXY-da ay sarakac u sameyso ay kor aado ay buy aado sidoo kale lacagahani sell ayay soo aadi doonaan lacagaha USD-ga gadaal u karacsan yahay ee quotes-ka loo yaqaano. So dhanka kale opposite-ka lacagaha USD-ga ayagana buy ayay aadi doonaan haddii DXY-da ay kor u kacdo. So lacagahana buy ayay aadi doonaan. Marka muhiimadda ay ku leedahay DXY-da waa sidaas waa inaad ku gargaartaa jihada ay lacagaha aadi doonaan ama buy may aadi doonaan ama dhanka sell may aadi doonaan. So markii aad DXY-da aad analysis-keeda si fiican u soo garato oo wadadii ay aadayso aad si fiican u soo garato ayaad ogaan kartaa lacagaha kale fursadahooda iyo meeshii aadayaan. So ugu horreyn waxaan ka bilaabeynaa marka DXY-da saaxiibayaal haddii aad muuqaaladeedii hore dib u soo daawateen waxaan bartaan idinkugu sheegay meeshay ku aadan tahay 94,700 waxaan bartaan analysis-kii hore ugu sheegay in DXY-da aysan dhaafi doonin meeshan. Haddii muuqaaladii aan soo sameeyay dib ugu laabatay 2 week ka hor bartaani waa bartii aan analysis-kayga ku xeejiyay in meeshani ay adag tahay inay jibiso oo aan kuu sheegay in markay meeshan imaado oo double top ay meeshan ka sameysato oo taabashadii labaad ay sameysato sida hadda caadiga ah waxaan joognaa daily analysis-keena daily ayaa kasoo bilaabnay. So markay meeshan imaado waxaan hore kuu sheegay in DXY-da ay dib u soo laaban doonto ay meeshani taabasho saddexaad ay ka dhici doonto sida ujeedin inta waxaan ka haysanaa taabasho koowaad taabasho labaad exactly weegan aan soo dhaafnay DXY-da sidaas ayay sameysay oo waxaan u jeednaa bartaani markay tagtay double top-kii ayaa ka dhacay oo double top ayaa sameysatay
dxy-diina dib ayay usoo dhacday oo meeshaan ayay taabashadii saddexaad ka samaysatay. Marka meeshaan markay taabasho saddexaad ay ka samaysatay isla markiiba waxaan aragnay in marketkii uu si aad u dhaqaaqay maalinta Jimcaha. Move-kana u jeediin waa maalinta Jimcaha oo keliya. Maalinta Jimcaha ayay dxy-da iyo lacagihii oo idil ay saaid u dhaqaaqeen halka maalmihii kale ee wiigan oo idil aysan marketka ka jeedin wax dhaqdhaqaaq wax momentum fiican ama volatility fiican. So marka maxaa wiigan ka sugaynaa oo dxy-da halkii ayay aadi doontaa? So haddii aan fiirino aniga mar walba waxaan isticmaalaa ilaa 3 indicator ayaan isticmaalaa. So haddii aan fiirino ugu horeyn indicator-keeni koowaad oo ah stochastic RSI wuxuu inoo sheegayaa in dxy-da ay buy ahaan doonto. So indicator-kan mar walba oo uu ka anfacayaa haddii aad rabto in suuqa meelaha laga soo celinayo ee pullback-ta ay galayso inaad uga daaratid indicator-kan si fiican ayuu ku anfacayaa. So indicator-kan mar walba wuxuu kuu sheegaa saa u jeediin mar walba oo suuqa qaybtan uu imaado oo hoostan uu imaado waa mar walba oo meesha laga soo celiyo. Saa u jeediin dxy-da meeshani waa meeshii saddexaad ay imaado waa kana saddexda taabasho inta waa u jeediin saddexdeeni taabashana meeshan ayay inoogu taalaa. So marka meeshan waxaan ka aragnay markii taabashada saddexaad ee dhacday in dxy-da meeshan uu cross ka dhacay. Crosska mar walba wuxuu kuu sheegayaa in markii meeshan tusaale ahaan markii ama topka ama lowga markay imaado uu cross uu dhaco waa confirmation lacagtaas in dib loo soo celi doono. Reversal ina meesha ka dhacay ayay mar walba confirmation u tahay. Marka confirmation-kii koowaad waxay tahay in RSI-gu uu sheegayo in meeshan cross uu ka dhacay buy adag uu jiri doono oo ilaa korkaas ay tagi doonto. So confirmation-ka koowaad oo RSI-ga ii sheegayo waa buy dxy waa ugu horeyn. Confirmation-ka labaad sida u jeediin haddii aad meeshan ila fiirisin halkan waxaa inoo yaala moving average-kan. Moving average-ka tan waa 200 moving average. 200 moving average mar walba waxay sheegtaa suuqa long term trend-ka uu yahay sheegtaa halka tan kale ama midda gaduudan ama cas ay tahay 50 moving average. 50 moving average si walba ayada ama sida caadiga mar walba waxaa lagu analyze gareeyaa daily-ga. Average-ka mar walba wadadaas ayuu ku sheegaa ama moving average mar walba wuxuu kuu sheegayaa sida qiimaha meesha laga soo celin doono ama suuqa direction-kiisa meesha uu yahay. Marka confirmation-keyga waa midaas. Confirmation-ka saddexaad aan isticmaalayo ayaa ayadana waxay tahay pivot point. So aan iska tirtiro pivot point sida uu shaqeeyo anaa fahansiin doono. Marka pivot point-ka moving average-ka hal mar ayaan iska bixinaa. Marka moving point-ga mar walba asagana wuxuu sheegaa low-ga iyo high-ga ayaa lagu xisaabsadaa. So sida u jeediin meeshani pivot point-ga asagana wuxuu tilmaamayaa in lacagta consideration ay ku jirtay oo mar walba trend ee imaadana laga soo celinayo. Marka inta timaadana haddana ay hore u kacday. So waa confirmation-ka saddexaad ee aan ka haystano waa ayada. Marka saddexdaas confirmation la isku daray ayaa dxy-da ii sheegayo in ay buy sii ahaan doonto. Marka mar haddii aan soo ogaanay in dxy-da buy sii ay sii ahaan doonto waxaa inoo fududaan doonta lacagaha kale analyze-kooda. Haddii aan 4 hour imaano 4 hour-kii haddii aan isla fiirino sida u jeediin meeshan gudaha waxaa dhex yaalo channel-kani oo ay dxy-da 4 hours-ka markii la joogay ay ku samaysanaysay consideration. Sida u jeediin channel-kani wuxuu ka samaysmay ama wuxuu ka bilaabmay taariikhda markay ahayd 28 September. Waa weekii aan hadda soo dhaafnay. Weekii hadda soo dhaafnay ayay ahayd. So channel-kani waa kan kor ayuu tagay soo respect gareeyay wuxuu u imaaday as support kor ayuu tagay as resistance inta laga celceliyay fake breakout ayaa dhacay. Haddii meeshan fake breakout-kani ku dhacday oo aad dxy-da buy u maleysay absolutely lacagtaada waa khasartay. So fake breakout waaye kadib wuu soo laabtay under channel-kii ayuu respect gareeyay dib ayuu u dhacay consideration yar ayuu inta ka galay. So under waa kan resistance-kii dib ayuu soo laabtay. Hadda marka waxaa helnay breakout. So breakout-kani mar walba breakout uu dhaco uu channel-ka ama channel-ka uu jibiyo price-ka ama ascending-ka ama descending-ka waxa mar allaala markaas fursada aad ka haysato uu kuu jibin laguma degdego. Waxa ugu weyn ee mar walba la fiiriyo ayaa waxay tahay in suuqa retest uu soo sameeyo. Retest markuu soo sameeyo kadib waxaad confirmation ka haysataa in dxy-da ay buy ahaan doonto. Sidoo kale mar waliba ayadana waxaa lagu sii xisaabtamaa
meelaha suuqa uu kasoo laabanayo oo retestiga ka sameynayo mar walba waxaad ku xisaabtamtaa meel aad is leedahay waa laga soo celin doonaa sida gaar ahaan bartaan camal fiiri so meeshan haddii aad u dhigato si support ahaan aad u dhigato aad support u dhigato uu kadibna marketkii kugu soo laabto oo dib u soo laabto soo retest gareeyo fursad fiican ayaad entryga ka haysataa aan isla fiirino waa kahay so marka waxaa sugaynaa ama marketka ka sugaynaa in DXY-da ay dib retest usoo sameyso si confirmation keeni oo noogu cadaado in lacagtani buy u raaci doono markay dib usoo laabato kadib DXY-da buy ayay aadi doontaa oo waxaan rajaynaynaa ilaa korkan inay soo taabato ilaa korkaas inay DXY-da soo taabato insha Allah muuqaalka mar walba inuu saaid u dheeraado so DXY-da intaan ayaan ugu bixi doonaa oo waxaan kuu sharxay sababaha ay DXY-da buy ku noqon doonto iyo confirmationada aniga ii gaarka aan isticmaalayo so haddii aan kasii gudubno oo aan kasii tagno waxaan rabnaa inaan tagno muuqaalkeeni koowaad oo ah USD CAD lacagteeni koowaad oo aan laaska ka sameynayn oo ah USD CAD so USD CAD sida u wada jeedin waxaan ka bilaabi doonaa one day si aan u ogaano marketka directionkiisa so one day-ga sida u jeedin USD CAD muddo buy ayay ku socotay oo waxay respect gareynaysay supportka iyo resistancy aan dhiganay so waxaa ujeedin in meeshan breakout uu ka dhacay USD CAD ay labadii week lasoo dhaafay hoos u dhac ay sameysay ilaa 350 bib ay dib usoo dhacday marka USD CAD maxaan ka filaynaa so maadaama DXY-da aan fursad ka helnay fursadeeda buy ay tahay so fursadda keliya aan USD CAD ka sugeynana waxay tahay inaan ayadana buy gareyno waayo hore waxaan kugu sheegay DXY-da hadday buy tahay lacagaha USD-ga ugu horeeya dhan inay buy noqonayaan lacagaha USD-ga ugu dambeeyana inay sal noqon doonaan marka conceptgaas anaa ku trade gareynayo ayaan USD CAD waxaan kaliya ka raadi doonaa fursad buy marka fursadda buy-ga intay ka raadi doonaa buy-ga inta ma yaalo sida u jeedin weli suuqa sellers-ka ayaa ku jiro buy-ga janiska kaliya heli karnaa waxay tahay haddii aad dib meeshan u fiirisid waxaan haysanaa trendline-kii si fiican ay u respect gareynaysay oo mar waliba oo trendline-kii ay taabato dib ayay u dhaceysay macnaheedu waxay tahay meeshani waxaa ka sameysmayay structure-ka suuqa loo yaqaano ama structure-ka suuqa uu leeyahay markuu suuqa sell ku socdo saa u jeedin waa kana low ayaa sameysmay high ayaa sameysmay low ayaa sameystay lowgii hore mid ka hoose ayaa sameysmay higher ayaa sameysmay lowgii kale mid ka hoose ayaa sameysmay higher lowgii marka ilaa weli meeshan sellerska ayaa ku jiro marka fursadda aan ka raadinayna oo USD aan ka raadinayna waxay tahay in sellerska meesha ay ka baxaan sellerska markay meesha ka baxaan ayaan jaanis heli doonaa marka sellerska goormay ka baxayaan waa su'aal aad muhiim marka sellerska waxay ka baxayaan ama sellerska structure-kooda wuxuu dhammaan doonaa markii DXY-da ay soo jibiso trendline-kan micnaheedu waxay tahay haddii trendline-kan ay soo jibiso meesha waxaa ka baxayo dhammaan sellerska waayo sellerska waxay arkayaan structure-kii sellka inuu meesha ka baxay oo ahayday structure-ka sellka mar walba wuxuu ahaaye in low uu sameysto marka micnaheedu waxay tahay haddii trendline-kan ay soo jibiso in USD CAD ay buy sii aadi doonto waayo ma aysan respect gareynin high-gii hore ka sareeyay macnaheedu waxay tahay markaasi waxaa sameysmi doono structure cusub oo buy ah oo USD CAD waxay aadi doontaa buy ahaan ayay ku socon doontaa marka USD CAD fursadda aan ka filaayo ayadana waa sidaas oo waxaan ka raadi doonaa keliya buy fursad sal kama raadi doono so waa kasii gudbi doonaa lacagta labaad oo aan rabno inaan las gareyno ayadana waa USD CHF USD CHF mar walba ayadana waxaan ku dabaqaynaa fikradeeni DXY-da maadaama DXY-da aan buy ka helno lacagaha USD-ga ayagana mar walba waxaan ka fiiri doonaa buy so USD CAD sida u jeedin saaxiibayaal trendline-keygii ama trendline-kii ii aalay ayay si fiican ayadana u respect gareynaysaa oo waxaa u jeedin ilaa muddo haddii aad fiiriso taariikhda markay ahayd waxaan jeclahay ay inay ku aadan eeday 6 January ilaa hadda suuqani waxaa ugu jeedin in marketka mar walba uu meeshani bountigan uu soo gaaro ay suuqa kadib buy uu sii qabsamayo oo dhanka buy-ga uu aadayo so hadda waxaa haysanaa marka hal taabasho laba taabasho iyo 3 taabasho oo meeshan marka USD CHF ayadana waxaa ka sugi doonaa buy so marka waxaan buy-geedan ka fiiri doonaa ama fursadda buy-geena aan
aan dul dhigi doonaa markay qiimaha uu imaado USD uu soo jabiyo trendline-kani koray sida u jeedin structure-kan waa structure-kii hore ee USD CAD-ka aan wada arkayn marka structure-keeda wax kama duwana ayadana waxaan sugi doonaa trendline-kan inuu soo jabiyo kadib soo retest gareeyo USD CHF ayadana waxay ahaan doontaa buy so waqti kale kuma soo dhuminayno waan kasii gudbi doonaa so waxaan fiiri doonaa lacagteeni saddexaad oo aan analyze-ka ku sugayno lacagteeni saddexaad ayadana waxay noqon doontaa euro USD euro USD haddii aan isla wada fiirno markii daily la joogo waxaan u jeednaa ayadana inay channel ku jirtay oo channelkana mar walba ay trade laga soo celinayo marka ayadana euro USD maadaama dollarka uu sell sameysmayo ayadana waxaan ka rajaynaynaa maadaama dollarku uu buy u yahay DXY-da ay buy tahay ayadana waxaan ka rajaynaynaa inay sell aadi doonto so sellkeeni marka intuu yaali doonaa wuxuu yaali doonaa markay structure-kani ay soo jibiso oo channelkan ay noo soo jibiso kadib ayaan sell gareyn doonaa inta kasoo baxdo kadib retest ku sameyso waxaan sugaynaa in euro USD ay sell sii ahaan doonto so lacagtaynii kale aan analyze gareyn karna ama lacagta afraad aan rabno inaan analyze gareyno ayadana waa GBP USD so GBP USD structure-keeda aad buu u fiican yahay aad buu u qurux badan yahay so waxaan u jeednaa meeshan daily markii aan joogno in ayadana ay muddo downtrend ay kusoo socotay oo downtrendkeedii mar walba ay si fiican u respect gareynayso trendline-ka markii ay inta imaaday ay soo retest gareysa markeeda saddexaadna uu sell ka dhacay ay hoos u soo dhacday marka waxaan sugi doonaa xoogaa inay kor u soo kacdo markay kor u soo kacdo ayadana waa sell gareyn doonaa oo markii xoogaa yar kor u soo kacdo ayaan sell gareyn doonaa hadduu ilaahay nafta nagu siiyo GBP USD waxaan ka raadi doonaa ayadana fursad kale oo sell ah lacagteeni kale aan kusoo khatimayno waa AUD USD aniga gaar ahaan keliya waxaan ku trade gareeyaa lacagahan USD-ga kuwa ugu horeeya kuwa ugu dambeeyo iyo sidoo kale Bitcoin so lacag kale ku trade gareeyo marka muhiimadeyda halahan un lacag waaye so sida u jeedin AUD USD ayadana waxaan u jeednaa in channel ay saaran tahay so waxaan ka raadi doonaa ayadana sellkiinana waxaan dhigi doonaa marka ay qiimaha ay soo jibiso halkan so hadda waxaan u jeednaa inay kor u socoto markii breakout aan helno kadibna retest aan helno oo bartaani ah oo aas u dhaqanto support ahaan ayaan kadib sii sell gareyn doonaa so dhammaan lacagahani waa lacagaha wiigani aan fursadaha ka raadin doono oo aan fursado ka rabo inaan ka helo so analyze-kani oo analyze gareeyay fadlan ha u qaadaan inay signal tahay ama lacag waliba sida meeshan ugu sharxsan lahaa uu qaadani so mar waliba concept ka qaado muuqaalkan concept kala bax kadibna fikradahaaga ama adiga istiraatiijiyadaada ku khaaska ah ku darso kadib markii aad fursad ka hesho tariyad qaado so waxaan kula talin lahaayay inaad analyze-kani aad u qaadato cilmi ahaan si aad fursado aad ugu kala dhexbaxdo oo aad adigana analyze-kaaga u darsato so muuqaalkeeni intaan kusoo gabagabeyn doonaa so waxaan rajaynayaa inaad wax un ka fahanteen oo wax un kala dhex bixi doontiin